xasaasiya ee daawadayaal weli waxaa kacsan xiisada u dhaxaysa reeraha Isaaqa iyo si la mid ahba beesha xiise xalay ilaa iyo saaka waxaa socday waan u dhaxaysa ee labada reerood kadib markii salaadiinta beesha Isaaqa ay kulmeen markaana kulmo muhiim ah ay qaateen kuwaas oo kulan la qaatay madaxweynaha ee dowladda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro sidii laga yeeli lahaa reerkan Xiise markaana ay jooga gobolka Salal halkaas oo ay weli ay ka sii wadaan abaabul shalay waxaa dhacay khasaaro dagaal aad u xoogan kaas oo sababay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed iyadoo dhimashada kor ay u sii dhaaftay ilaa iyo 20 qofood saaka mar kale waxay isku hor fadhiyaan Zaylac markaana ay soo fadhiyaan ciidamo kala duwan iyo si la mid ah ciidamada beesha Xiise dhinaca kalena taliyaha ciidamada Soomaaliland Nimcaan Ganuux ayaa halkaasi gaaray sida la xaqiijiyay isagoo wada abaabul iyo qorshayaal xoogan sidii gebi ahaanba looga hortagi lahaa beesha Xiise waxaase la sheegaa markaan in ciidamada beesha Isaaq iyo si la mid ah kuwa Samaroonka ay u kaashanaya ciidamada ee dowladda Soomaaliland ayaa dhaqdhaqaaqyo halkaasi ka wada iyo arrimo kale oo xasaasi ah oo muhiim ah dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa mar kale saaka fariimo kala duwan gaarsiiyay ilaa iyo xalay beesha Xiise isagoo u sheegay in markaan la xalin doono arintooda markaana loo baahan yahay inay xaaladdu ay dejiyaan xalna laga gaari doono isagoo ugu yeedhay wada hadal oo ku furmi doono caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland halkaas oo ku sheegay inuu kula hadli doono reerka Xiise dhinaca kalena banaanbaxyaal xoogan ayaa weli ka sii socda Burco iyadoo halkaasi gebi ahaanba cakiran xaaladda dhinaca kalena shacabka ayaa si aad ugu soo horjeestay ee dowladda Soomaaliland iyagoona ay ku sheegeen in dowladooda markaan ay noqotay dowlad Yahuudi ah markaana loo baahan yahay inay iska dulqaadaan dulmiga culus ee halkaasi ka socdo Burco waxaa ka socda gebi ahaanba mudaharaadyo aad u xoogan iyadoo shacabka ay geysteen khasaare burbur hantiyadeed kuwaas oo gebi ahaanba xidhan magaalada oo idil iyadoo dhinaca kalena xidhan si la mid ah isu socodka gaadiidka iyo si la mid ah adeegyadii muhiimka ayaa hakad kale iyo ganacsiyadii ayaa gebi ahaanba xidhan magaalada Burco halkaas oo weli mar kale ka socda dhaqdhaqaaqyo culus ciidamo ka socda ee kuwa dowladda Soomaaliland ayaa halkaasi gaaray si arrinkaas ay u dajiyay iyagoo dhinaca kalena la sheegay inay ka hortagi doonaan mudaharaadyada ee shacabkan ay ku kacaysa markaana ilaa shalay ay u xirnaayeen Burco banaanbax xoogan oo looga soo horjeedo dowladda madaxweyne Ciro ayaa halkaasi ka socda iyadoona la sheegay inay sabab u noqon karto burburkii ee dowladda Soomaaliland mar kale markaana dowlad la'aan halkaasi ay ka dhici doonto inay suuragal ay noqon karto soo daawade haddii nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe the channelka like share muuqaalka share garay asxaabtada si gaarsii mahadsanid aynu guud galno magaalada Burco ayaa ka socda banaanbaxyo xoogan kuwaas oo looga soo horjeedo ee dowladda Soomaaliland kadib markii shacab cadeysan isu soo bax ballaaday ay ku sameeyay halkaasi iyadoo shalay gebi ahaanba ay xirnaayeen isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga maanta si la mid ah waa maalintii labaad waxaa socda banaanbaxyaal xoogan iyadoo banaanbaxan uu ka daran yahay kii shalay oo halkaa ka dhacay markaana shacabku si aad ay u cadeysan yihiin dhinaca kalena waxaa la sheegaa in ciidamo ka socda ee Soomaaliland oo halkaasi ay gaareen markaana ay doonayaan inay xasiliyaan arrinkan iyadoo shakhsiyaad gaar ah Soomaaliland ku eedeysay banaanbaxan inay ka dambeeyaan ugu horeeyo xildhibaan Maxamed Abiib kaas oo Soomaaliland ku eedeysay inuu isagu yahay xubnaha ugu muhiimsan oo qayb uu ka yahay banaanbaxaasi Burco ka socdo kadib markii maalmo ka hor uu la hadlay warbaahinada Soomaaliland isagoona u sheegay in loo baahan yahay shacabkiisa inay iska dulqaadaan dulmiga muddada 30 sanadood ee ka dhex socday markaana loo baahan yahay inay iska dulqaadaan dulmigooda waa markuu ka dhawaajay isagoona sheegay haddii reerkiisa ay u sheegaan inuu xilka dhigo inuu diyaar u yahay haddii ay ku tilmaamaan ama ku eedeeyaan matalaad xumo wuxuu ballan qaaday warbaahinta horteeda inuu xilkaas ka dhigi doono laakiinse dhinaca kalena wuxuu bayaaniyay inuu u soo dhicin doono xaqooda mid ka mid ah warbaahinada Soomaaliland ayaa mar kale wareysi la yeeshay xalay xildhibaan Maxamed Abiib isagoona xusay in Soomaaliland ay ku dhowdahay ama ay ku siqatay inay burburto gebi ahaanba wuxuu kale xusay in Soomaaliland la wada leeyahay loo baahan yahay laakiin Soomaaliland dad gaar ah iskale gaar ahaan reerku fartu ku fiiqay ay yihiin Isaaq uu ku sheegay in iyagu kaliya aysan lahaan karin dowladnimada ee Soomaaliland wuxuu sheegay in haddii aan la wada lahaan karin Soomaaliland inay burburi doonto markaana aysan waxba ka soo hari doonin isagoo hadalkiisa ay u muuqatay mid oo ku tilmaamayo in haddii Soomaaliland ay ictiraafka imika ay heshay hadda wax la sixi waayo wuxuu xusay in Soomaaliland aysan wada jiri doonin
dhinaca kalena Soomaali weyn ay isku imaan doonto sidaana dib ugu laaban doonaan halkii asalkooda ay ka yimaadeen waa sida uu ka dhawaajiyay xildhibaanka waayahay dhinaca kalena Zayla ayaa isor fadhiya ciidamo ka kala socdo ciidamada dawladda Somaliland iyo kuwa beesha ciise dhinaca kalena ilaa Lughaya ayaa la isku haya isla markaana halkaasi ay fadhiyaan biyo dhaadheer oo ah deegaanka shalay la isku dagaalay ayaa iyadana mar kale la sheegay saaka oo ka qarxay ee dagaalka xalay ilaa saaka ayay isor fadhiyeen ciidamada kuwa isaaqa oo kaashanaya Samaroonka mar kale waxaa garab soo istaagay ciidamada dawladda Somaliland oo hogaaminayo taliyaha ciidanka ee Somaliland Nimcaan Gaaxnuux ayaa la sheegay inuu halkaasi u gaadhay isla markaana uu halkaasi ka wado dhaqdhaqaaqyo culus isagoona la sheegay in taliyaha uu amar buuxa ku siiyay dhammaan ciidamo beeleedyada iyo si lamid ah ciidamada dawladda Somaliland in la soo afjaro reerkan ciisaha oo halkaasi uu ku dagaalamayo iyagoona sheegay in haddii ciisaha looga yeedhay caasimadda Hargeysa ee Somaliland ay qaadan waayaan waanwaanka iyo hadalka salaadiinta markaan la soo afjari doono ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa ayaa si lamid ah looga yeedhay Hargeysa isagoona loo sheegay in loo baahan yahay inuu la hadlo reerkiisa isla markaana xaaladda u dejiyo ugaas Mustafa ayaa sheegay inuu samarraba ka tanaasuli doono isla markaana wixii reerkiisa ay xaq u leeyihiinna ilaa ay ka helaan mooyee si kale inaysan ka tanaasuli doonin beesha ciise dhinaca kale waxaa la sheegaa in madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo khadka taleefanka kala hadlay ugaaskiisa ugaas Mustafa isla markaana u sheegay inuu u soo dhiibi doono hub iyo gaadiid kala duwan wuxuu madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo ugaas Mustafa u sheegay in reerka uusan la hadlin isla markaana uusan ku amrin inay dib ugu gurtaan dagaalka laakiin u sheegay in dagaalka hore ay u sii galaan isla markaana reer ciise oo idil ay dagaalka foolka toos ay u galaan ayna u wajahaan ciidamada dawladda Somaliland sidaas kaga dhicin lahaayeen iyadoo arintaas salka ay ku hayso guban iseed oo ay doonayso beesha ciise inay halkaasi ka aasaasato qorshayaal halis ayaa ka socda Somaliland iyadoo dhinaca kalena la sheegay in sirdoonka Muusaad oo soo gaaray caasimadda Hargeysa ee Somaliland sidii loo soo afjari lahaa shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee jabhadda ciise iminka dagaalada ka wada iyadoona la sheegay in diyaaradaha Israa'iil la doonayo inay duqeymo degdeg ay ka fuliyaan gobolka Salel halkaas oo la sheegay inay ku sugan yihiin dadka ugu muhiimsan ama hogaaminaya beesha ciise iminka ku hogaaminaya dagaalka kuwaas oo laga sheegay in loo baahan yahay in halkaasi duqeymo adag loogu geysto isla markaana lagu tarbiyeeyo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa isna khadka taleefanka kala hadlay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kaas oo u sheegay in Somaliland ay ku dhowdahay inay burburto kadib markii burco banaanbax uu ka dhacay dhinaca kalena Salal iyo si lamid ah deegaano kale ba Somaliland ka tirsan ay ka socdaan xaalado adag iyadoo gobolka Sanaagna lagu arkay sida shalay halka aynu ku baahinay ciidamo ka socda beesha dhulbahante ayay wacad ku mareen in Sanaag iyaguna mar kale ay ku dari doonaan dawlad goboleedka waqooyi bari iyaguna ay doonayaan halkaasi gabiyaanba Somaliland ayaa ololeysa iyadoona madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo qadka taleefanka ugu sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in xaaladda Somaliland ay cakiran tahay isla markaana loo baahan yahay in gargaar degdeg ah la soo gaarto Israa'iil iyadoona uu sheegay in halkaasi horaantii bishan kowdeeda halkaasi loo qaaday Tel Aviv caasimadda Israa'iil dhowr ciidamo oo kuwaas ka socda Somaliland isla markaana loo toobari doono inay qaadaan diyaaradaha loo yaqaano F-35 kuwaas oo Israa'iil ay ugu deeqday Somaliland isla markaana ugu tala gashay inay ku difaacato hawadeeda iyadoo dhinaca kalena ay duqeymo ay ka geysan doonaan waxaase la rajeynayaa in ciidamada Somaliland ay ka baxaan si degdeg ah u soo gaaraan caasimadda Hargeysa Soomaaliya isla markaana ay wadaan diyaaradda F-35 kuwaas oo qorshaha u yahay in duqeymo adag looga hortago beesha ciise iyo si lamid ahba reeraha kale doonaya inay gobolada halkaas ay goosaan gaar ahaan reerka ciise ayaa qorshaha sidii lagu soo afjari lahaa Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Djibouti ayaa fariimo culus u soo diray Somaliland isagoona u sheegay in Somaliland wax la yiraahdo uu ka tirtiri doono gabiyaanba khariidada isla markaana markii horeba Soomaaliya ay ka tirsanayeen haddana dib ugu celin doono dhulka Soomaaliyeed wuxuuse fariin kulul aad u kulul isdhaafsadeen sida la helay xogaha madaxtooyada Somaliland laga helayo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa isdhaafsaday fariimo kulul taasoo ay ahayd in Somaliland ay taageeri doonto canfarta ilaa iyo madaxweynaha isaga kursiga loogu tuuri doono amaba inuu ictiraafo Somaliland oo la dhaqmo si diris madax banaan Ismaaciil Cumar Geele wuxuu u sheegay in gabiyaanba Hargeysa dhulka uu la simi doono isla markaana
marnaba uusan aqbali doonin inay goosaan amaba uu siiyo ictiraaf isagoona u sheegay in khalad weyn ay sameeyeen ee reer Somaliland maadaama ay taageereen jabhadda canfarta oo halkaas ka dagaalanta wuxuu carabka ku adkeeyay Ismaaciil Cumar Geele xilli oo khadka telefoonka kala hadlayay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro inuu dhulka u marsiin doono isla markaana dhulka uu ku dari doono Somaliland iyo Hargeysaba isagoona sheegay inuusan aqoonsanayn wax Somaliland la yiraahdo laakiin uu sheegay inuu aqoonsan yahay Soomaaliyeed taasuna loo baahan yahay inay tahay halka kaliya ay ku midaysanaan karto Soomaaliya oo idil wuxuu balan qaaday in reerka Ciise oo ka soo jeedo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele uu sheegay isagoo xilli khadka telefoonka madaxweynaha Somaliland kula hadlayay in reerka Ciise ay lug ku gali doonaan ilaa iyo Hargeysa caasimada isla markaana halkaasi ay qabsan doonaan wuxuu kale u sheegay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele in sidii hogaamiyihii kooxdii Yemen ka dagaalamayay gooni goosadka ahaa sidoo inuu carray doono madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro isla markaana u carray doono dhanka iyo Imaaraadka wuxuu kale xusay in loo baahan yahay hadii kale in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro in imika soo dhiibo isla markaana uu ku qanaco xukunka Soomaalinimada iyo silamada wuxuu maxkamad in la soo saari doono isagoona loo sheegay in loo baahan yahay wixii ka soo baxa dawladda Soomaaliya iyo maxkamadeedaba inuu ku qanaco deetana isdhiibo wayhay daawadayaal ugu dambeyntii beesha Ciise ayaa waday dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeysay iyadoona ay doonayaan in gubanisyeed ay si rasmi ah ugu soo biiriyaan xukuumadda federaalka Soomaaliya taasina ay tahay rajada kaliya oo ay qabaan beesha Ciise gobolkaasi iyagoo ay la goosaan